anigu haddaba shakhsiyan 29 sanaan baabkan ku jiray oo waxaan aan ka shaqaynayay 90kii ilaa up to now waanu ka agdhawaa wixii aniga isoo maray shakhsiyan ayaan soo bandhigayaa tusaalayaal yar oo kooban oo aan shakhsiyan anigu u arkay xaqiiqo ahaan oo aan cidi iiga waramaynin hal qiso waxay ku saabsanayd aniga oo burca markaa fadhiya waa 98 taqriiban 99kii meelahaas taariikhdu ay ku beegan tahay waxaa ii yimi 2 nin baa xanuunsanaya ninka kalena wuu wadaa ninka kale ee wada aad baan isu naqaanaa waa nin mutacallim ah oo jaamacadihii Soomaaliya ka baxay ayuu ahaa nin ay maadeeriin buu ii keenay ninkaas markaa xanuunsanaya sidoo isagu u waday ninkii markuu ii keenay quraankii ku bilaabay isagii waday baa igu dul dhacay isagii waday ayaa igu dul dhacay isagii baan markaa ku mashquulay kii kale ma dhicin markaan quraankii ku bilaabay isagii baa dhacay isagii markaan quraankii ku aqriyay isagu koomu ku jira marka carabkiisa waxba ka hadlay maxaa ahaydeen gabadh baan ahay hebel baan ahay ninkan waan jeclaa sixir baan waraabiyay calooshaan u fadhiyaa sixirkii bay tiri ninkii markii uu soo miiraabay ayaan waraystoon ku yidhi caloosha ma wax xanuuna ka haya marka wuxuu yidhi hadda ayaan ka soo noqday Germany waxaanay ii sawiray caloosheeday sawireen waxay yiraahdeen xiidma ayaa qayb dhani ay dhimatay waa laga goynayaa madoobaati marka wuxuu yidhi bal aan soo diyaar garoobo sidii marka ballan baan la leeyahay dhakhtarkii Jarmalka ahaa waxaan rabaa Germany inaan tago jinniyadan la soo dirtay ee loo soo dirtay inay maxabo ninkan ay jeclaysiiso waxay isu bedeshay marad inqalaba sihr wala yuflihu saahiru haythu ata waxuu isu bedelay sihr al-marad waxaana loo xidhay sihr al-mahabba in ninkan uu jeclaado naagtaan way suroobi weyday waxay isu bedeshay sihr al-marad marka waxay ii sheegeen jinkan la soo adeegsaday khaadimka ah ee sixrooluhu soo dirtay waxay noo sheegeen halkan madow ee dhaqaatiirtu aragtay annaga sawirkan sameeynayna kaliya waxaan rabnay inaan kharash gareyno oo aan rafaadino oo xidmaha bar la jaro muddaan markaa quraankii ku wadnay alxamdulillah uu raystay ilaa hadda uu shaqaystaa muhiim ah inaan magaciisa sheego niman aad saaxiib ahaynba dhacdada labaad waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan bay ahayd isla burca lafteeday taasina igala kulantay waxaa la ii keenay inaan sinimada 15 jir 14 jir oo aad iyo aad yani u qurux badan ma sha Allah inanta ayaydeed baa haysta hooyadeed way dhimatay marka ayaydeedaas ma kala garanay matii aaba matii hooya ma kala garanaya inantii markii ay ilaa 12 jir noqotay mii bay ku haysatay ay u shaqayn jirtay ayaa waxay damacday inantii inay magaalada ay ehelkeedii kale ay u timaado wax barato islaantii iyadoo wax xumaa islahayn waxay u tagtay kuwan sixiroolayaasha waxay tiri inantii waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh miyaa garanaysaa waa garanaysaa inanta waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh si aanay iiga tegin ayaydeed iyadoo waxyeello geysis ma lahayn sixirkii ay u soo qabatay jilib xidhku waxa weeye qofka la rabaa inaanu gurigaba ka bixin ama aanu magaalada ka bixin ama qofka la dabrayaa qofkii baa la dabrayaa si aanu meesha uga tagin inantii sixirkii sidii laga rabay muu noqon sixir al-marad bay isu bedelay maskaxdeedii baa khalkhashay marna wuu soo galaan maskaxday qabsadaan marna way sii daayaan inantii intay maskaxda qabsadeen baa maalmaha kamida intay gaas iyo kabriid u dhiibeen ayay qabadsiiyeen inantu markaa ilaa intaa naasaha ka hooseysa way ka gubatay dhammaantood way gubatay inantii oo yani aad iyo aad u rafaadsan baa laygu keena burco marka mashkiladdu may ahayn inay iskubto waxaa aniga iga damqasho badnayd mar allaaliya marka la is yidhaahdo dhaya
dhakhtarku uu doono inuu dhaymihii saaro ayuu jinkii hadlayaa uu leeyahay dhaymada naga daa haddii kale dhinaca caddeeya sameeyo dhinaca kalaan diirka ka qaadaynaa meeshii gubatay adoo saa u arkayabaa dhinacii intuu diirku ka cararo ayaa dhiiggu saa uga soo boodaya dhiigga ka soo boodaya hadba dhinaca la dhayamayo dhinaca kaluu nabarkii ku dhufanayaa deedna waxaan go'aansannay in aan afka ka siino dawadii mar haddii dhaymadii waa bahal caniida buu ahaa qofkiina waa qofta jilicsan oo laguma sii tiigsan karo dhakhtarkii markaa waxaan isla qaadanay in antibiotic inantii la siiyo been idiin sheegi maayo masaajid baan fadhiyaaye 4 xabo antibiotic ah baa mar kaliya aanu liqsiinay isla waqti yar gudaheed xagga dambe ka keentay iyadoo wax allaaliya wax dheecaani aanu gaadhin antibiotic waa taqaano kan deequm abu qumbula haddii candhuuf yar taabato markiiba kala daata ayaa intay hunguriga martay oo caloosha martay oo xiidmaha martay waxa soo acid ah iyo waxa soo qoyaan intii ka badbaadeen ayay toos uga soo baxeen duburta 4 midba gacantaan ku qaadnay iyagoon bari gaadhin wax allaali wax isbedeli aan jiri ilaahay wakaas dawadiinii ayay nagu yiraahdeen inantii markaan u maaro weynay oo si allaali si aanu galaan weynay inantii markaa aniga waa la iga qaaday waxaan anigu hawshan waxba ka qaban kari maayo ma garanayo hadda inantii inay dhimatay iyo inay nooshay laakiin aad bay u silciyeen gabadha waxa kaloo aniga isoo maray ilmo yar oo 4 jir ah oo meel harqoodaale buu ku cayaarayay show caruur jin leeyahay baa uu wax gaarsiiyey jinkii baa ilmihii yaraa galay ilmihii yaraa isagoo suuxsan baa laga keenay ilmaha yari weligii meel jin lagu shidayo iyo meel quraan lagu aqriyo iyo meel la isku yeeli karo weligii muu arkay ilmihii yaraa markaan quraanka ku aqriyay wax cod weyn baa igala hadlay maxaa ahaydeen jibriil baa la idhaahdaa ومحد كربتها ilmahan yar caruur buu igaga joogsaday tacaruurta idinka arkay ma kala leexsataan uu nagu soo kadiyay adu cabaar quraankii ku aqrinay ilaahay ilmihi uu badbaadiyay caadi buu soo toosay adar bal warano doo ilmo yar waxba fahmi maayo caadi buu ila sheekaystay wax dhibaato aan mu dareemin laakiin codka noocaas oo kala ilmuhu muu lahayn markiibana wax suuxdina ma ahayn markaan quraankii ku aqriyay uu soo baraarkay qisada kale la yaab kale ila kulantay waxay ahayd gabadh reemiye baa la keenay af ingiriisiga ma taqaano markaan quraankii ku aqrina way dhacday jin daldalmayo ingiriisi aqriya naga soo booday tayaano af garanaya af ingiriisi waan kula hadalay marka anu horta inta waan arkay jinka af ingiriisiga ku hadlaya naagta reemiga ka dhaxadlaya ilmaha yar 4 jirka ah iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa sixirka loo soo diray marka intaas waa macluumaad badan baan idin hayaa insha Allah markaan sixirka iyo jinka iyo meelaha hawlaha aan gallo laakiin inta waxaan u soo qadimay inaan uun daliil ka dhigno in qowlka raajixi uu yahay inuu jinku waxyeelo gaarsiin karo bini'aadmiga sideedabana caalamkan siyaabo badan baa bini'aadmigan looga baayac mushtareeyaa ninba si uu wax uga raadiyaba sixirkuna sidiisaba waan ka warrami doonaaye inta badan sidii loogu talagalay uma hirgalo mararka qaarkoodna kii sixirka soo xidhay baaba isku rogaa inqalaba sixru cala saaxiri marka waxa inta hadaan ka faa'iideysto aan ka digayaa waxyaalaha la shaqaysta shayaatiinta iyo jimanka in aad looga taxadiro dhib badan baa ka timaada iyadoo ujeedo loogu tagay sidii iska bedelaysa oo si kale ay isu bedelaysa hadda aniga maantadan qola ay timi qoladaasi marka marxaatiba iga rabaan inaan arrinka marxaati kaco waxay igu yiraahdeen
gabadh ismahaan la yidhaahdo oo cilaaj ku haysata 150 meelahaas ayaanu u tagnay waxay noo sheegtay in maxamed sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed cumar dirir ay labadaba fatwo ka haysato noocan ay u shaqaynaysaa inuu sax yahay oo waliba maxamed sheekh ismaaciil dawooyinka iyadoo ay u dalabtay iyadoo u keento haddaad rabtaan orda oo maxamed sheekh ismaaciil u taga oo soo weydiiye waan weydiiyo naagtu maxay ku shaqaysataa waxay tidhi junuud muslima ila shaqaysaa junuud muslima ayaan wada shaqaysanaa waxay ii sheegeen markaa kuwii u tagay waxay tidhi adiga sixir baa adiga iyo ninkaagii lagu kala kaxeeyey sixir lagu farayaraystay ninkaagii sow kuma maqno dibadda haa telefoonka mayuu kaa qabtaa maya igama qabto haa waa laydin kala eriyey marka waxaan rabaa inaan adigana sixirkii kaa furo isagana aan sixirkii ka furo adiga $500 baad keenaysaa hawshaad way sahlan tahay isagana nambarka telefoonkiisa isii halkaa uu jooga baan ku daweynayaa laakiin hawshiisu way culus tahay $1,500 baad keenaysaa waa maantadan isaga hawshiisu way culus tahay $1,500 ayaad keenaysaa way ii yimaadeen waxayna lacagtii badh bay naga haysaa lacagtii badh bay naga haysaa maxaan yeelaa marka waxaan ku idhi wax allaaliya wax gabadhaa aan ka aqaano iyo dawo ay aniga ii keento iyo fatwo ay ii weydiisay ma jirto in shaytaan la adeegsadana shareecadu ma ogola ee arrinkaa ka taxadara arrinkaasi inta faraha badan dhib buu u keenaa makhluuqa waxaynu ka warramaynay dhibta isha iyo sixirka qiso yaroo aad iyo aad u la yaab leh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday gabadh baa waxay burco ahayd in badanna waan ka sheekeeyey si ay ugu cibro qaataan dadku waa masalo aad yacni in lagu cibro qaato u mudan gabadh reer burca baa waxay siin jirtay nin miskiina ayay aroor walba quraac siin jirtay ilaahay dartii laxoox iyo subag iyo waxay isugu dari jirtay koobkiisa shaaha ah ninkii maalintii dambe ayuu gabadhii la hadlay wuxuu yidhi heedha gabadh yahay waxaan kuugu abaalgudo garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo oo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu hawaysanin waa si fiican bay ku tidhi waa saxe iga caawi deedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoosgeli maxaan ku idhaa cid kale hawaysan maayo halkaasuna ha kuugu jirto way ka qaaday barkimadii bay hoosgelisay ninkii markuu soo hoyday ee barkimadii ku seexday ninkii waabu shaqo tegi waayey kaadi uu u kaco mooyaan xataa salaad waa u kici kari waaye uu kacaa hadday wax yar uu cuno jiifkuu ku cunaa amba fadhiguu ku yarcana hurdadiibuu ku noqdaa haddana wuu kacaa markuu kaadi qabato hurdadiibu 3 maalmood iyo 3doodii habeen ayuu jiifba ka kici waayey uu sariirtii uun jiifaa war dee shaqo tag waan daalanahay idaadaasunba hayaa maba shaqo tegayaba dabadeedna isagoo musqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay ninkii caadi buu u dhaqaaqay markuu iska tegey shaqadii buu tegey ninkii kalena wuu yimaadaa mar walba ka warran ninkii si fiican bay tidhaahdaa sidhinkii waa haystaa maalintii dambe waxay idhi ku kalo ka xoog badan baan kuu keenayaa ku kaloo kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa waayo ii keen bay ku tidhi wax yaroo tuman ayuu u keenay wax yaroo tuman ayuu u keenay wuxuu ku yidhi shaaha ugu dar haya keen bay tidhi way ka qaaday waagii aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay isagiibay shaaha ugu dartay marka shaahii dhadhamiyey ayuu cabaaday nawa maxay waxaan ku leedisiisay nawa maxay waxaan ku leedisiisay maradii buu tiri sidii buu ku waashay been idii sheeg maayo isaga kii waxaa soo dhigay nawa maxay waxaan ku leedahay waxaad noo dhiibtay bay ku tiri ninkaaga sii waxaad nagu tiri ninkaaga sii ayaanu dee adiga ku siinay been idii sheegi maayo sidiiba horta ninkaasi uu ku waashay marka waxaan ka wadaa unasixukum billaah nin ceel galay oo aan ka soo warramin nin maaha baa la yidhi warraa'idu laa yakdibu ahlah
الرائد لا يكذب أهله meelaha aad ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysanayo ama nin la jeclaysiinayo waxa soo dhan hadhow dhibay keenaa ani inta soo jeer waxa soo martay gabadh loo qabsaday madiido oo madiidadii iscakistay madiidadu waxa weeye waxaan ay carabtu yiraahdaan tiwalada oo qofka ayaa waxa la rabaa inay wax jeclaato ama ninku inuu wax jeclaado ayaa la rabaa madiida la yiraahdo carabigana tiwala ayaa lagu yiraahdaa inantii markii madiidadii loo qabtay dhammaan wax allaaliya wixii rag ah oo dhan bay saniftay xataa aabaheed xataa walaalkeed wax walba way saniftay ragba hadduu noqdo qadmuun buu u soo uray halkii laga rabay inay ninka jeclaato bay jamiica rijaal oo dhan bay nacday mid kalena way soo martay oo isla madiidadaasa oo markii madiidadii loo qabtay nimow nin ma tahay oo uu jeclaatay wax allaali wixii ninba sheegta way iska daba ordaysaa waxa anigu aan la kulmay ama ninkii arkay oo iga waramay ninba wuxuu soo samaystay madiido waa qiso aad u cajaa'ib oo qosol badan ulba loogu soo qabtay oo hadiya jeer miyiga markaad aragto ulba wax loogu soo aqriyaa wixii maxaan ku dhahay junuudi la soo raacinaya deedna ninkii oo ushii wata ayaa wuxuu soo maray meel ceelahoo laga dhaansanayo ayuu soo maray ushiisiina iska sitaa isagoo oo markaa ushiisii sita oo doonaya inuu ceelkii ka cabo ayaa dameer meesha taagnayd oo la dhaaminayay ayaa ku soo yara dhawaatay deedna ushiibuu iskaga dhuftay dameertii baa daba carartay isagii meeshuu maraba way daba qaylinaysaa meeshuu maraba way daba qaylinaysaa war dameertii maxaad ku samaysay war dameertii baa ka hadhi weyday si allaaliya si looga reebo dameertii waa la garan waayay aakhirkii dameertii waa la dilay xaqiiqatan marka horta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam wada asraar ah oo aynaan furfuri karaynin oo ilaahayna leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka aqoonta maanta aynu u leenahay iyo mugga aynu u leenahay cilmigani waa aad buu u yaryahay ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan war ilaahay qur'aan buu ina siiyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmat lilmu'miniin ninbaa nin sheekha u yimi wuxuu yidhi sheekhow qur'aankii aniga wuu idhibayaa marka laygu aqriyaba qur'aankii maba ku caafimaadayo wuxuu yidhi dee munaafiq baa tahay maxaad ku caddaynaysaa dee qur-aankaa ku sheegay buu yidhi وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ده ظالم باتا يبوي توبة كان مركز القرآن كو أنفعيا هذه قد القرآن كي كلسونين أو ثقة كقبن وحبكو ترماية ظالم بعد نقول إنسا ظالم كنا ما ينتفع صدد القرآن كو أنفعيا مؤمنك سيدي هذا من وحو أنفعيا قفك دايق إنسان أنا عند ظن عبدي بي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا إذنكو رميسانين وإلهي إذن أقبليا ومباها نيسان مشعوذ إيا سحر رولي إيا وحكين لا شقا يستمنا بغفك بالمسلم كمباها نيا لأنه وحوها يستا كلام الله تبارك وتعالى إلهي كلام كيسيبوها يستا مركا وحان إذن كنا سيحينيا دادك ميلها فرفرديا جيمانك أديك سنية شياطين توحلا قيب سنية وحويدينيا waxaan ku yiri qolehan maalintii dhaweed yimide gabadha lahaa wax lacag baan siinay maxaa ku rumaysateen waxay noo sheegtay xaaladaha iyaga oo dhan bay nooga warrantay magacaygii bay sheegtay magaca aabahay bay sheegtay kii awowgay bay sheegtay dhibaatooyinka aan qabo dhan bay ii sheegtay waatan habeenkii dhaweed idinka warramayay waxaan wax saa u sii ridan maaha inuu maxaan ku raashay shaytaanka la shaqaysanaya inuu kaaga warramo xaaladaada oo dhan wax muhiim ah oo qofka bini aadmiga awliyanimo tilmaamaya ama qofku inuu qaybka wax ku og yahay tilmaamaysa ma aha labadan shaytaan ee qarinadun baa iswaraysto anigii kaaga warramay marka barakallahu fiikum waxaan idinka digayaa oo idinka nasteexaynayaa dhib badan baa ka timaada marka loo tago saaxirka iyo maxaan ku rahaa kuwa mushacwidiinta
diin ahaanna waaba dee lagu baaba'ayo waataan ka soo warrannay ruuxii sixiroolo u taga ee rumaysta wuxuu ka warramayo faqad kafara bima unzila calaa muxamed xadiidkii saxiixa ah qofka sixiroolo u taga wax diinu haystaa ma jirto diinta islaamka bannaankuu ka yahay in loo taga ma ahan